beesha habargidil ee Hobyo taariikhdu 15 bishii 8 2019 ujeedo wal muftiyeed shirka Hobyo hordhac ayadoo laga anba qaadayo shirweynaha beesha habargidil muddooyinka ugu dambeeyay uga socday magaalada Hobyo shirkaas oo laga gaaray guulo badan maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii 8 2019 waxa halkan hortiina lagu saxiixay mabaadi'dii guud ee beesha ay wada gaartay sidaas darteed waxa halkan ka soo jeedinaynaa war muftiyeed aan la wadaagayno dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka shirweynuhu wuxuu u baaqayaa guddiga qabanqaabada ee shirka dib u heshiisiinta galmudug iyo inta ay qusayso qodobada soo socda koow shirweynaha Hobyo inuu ku soo dhamaado muddo kooban si ergada qaybgalka shirka Hobyo uga mid noqdaan shirka dib u heshiisiinta galmudug labo guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug inay tixgeliyaan gaar ahaan siiyaan dhamaadka shirka Hobyo saddex beelaha walaalaha ee dib u heshiisiintu galmudug nagala dhaxayso inay gacan ugu siiyaan guusha Hobyo si ujeedooyinkii galmudug ee naga wada dhaxeeyay ay guul u wada dhamaadaan afar waxa lagu wargelinayaa dhammaan daneeyaasha ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta galmudug ee ka soo jeeda beesha habargidil inay ixtiraamaan danta guud iyo midnimada beesha dhamaad intaas afartaas qodob ayuu ka kooban yahay war muftiyeedku waana salaabantihiin